waxaana wanaagsan asxaabteeda qalabka markale barnaamijyadeena Excel-ka waxaan idin tusayaa qaabka tax-ga loo shaqeeyo. Marka qofba waxa la yidhi shirkad baa lagu yidhi mishaarkooga u shaqeeya waxaa lagu siiya adiga intaasa tiradaasaa lagu siiyey hebel intaasoo qaata hebel intaas qaata hebel intaasoo qaata markaas waxaa lagu siiyey numberkan baa lagu siiyey so micna meaning noo siiyo waxaan u bedelanaynaa haddaan doono waxaan u bedelanaynaa lacag baan u bedelanaynaa dollar calaamad dollarkan raacinaynaa markaan waxaabana nasiibe kasoo qaado adeerada numberkan baana nasiiyey markaas waxaa lagu yidhi taxigooga shaqee hadda taxigana waa lagu sida caadiga waa lagu sheegay waxaa lagu yidhi haddii qofka intaas uu qaato 12,000 hadduu qaato ninkaas maxaa la gabadha Soomaaliya hadday 12 qaadato waa qofka ugu sarreeya ee taxiga ugu badan laga qaadayo 35 ka dhig wixii ka 30 ka dhig kaas 25 ka dhig 8,525 ka dhig may 9,525 ka dhig 8,20 ka dhig 7 ka dhig 15 kanna ka dhig baa lagu yidhi markaas waa shaqaysanaysaa hadda kadib si aad u qabatid adigu hawshaada u wadid oo lagugu sheegin yaad adaa shaqaynaya qaabkaad u shaqayn lahayd taxiga halkan markaan idinku tusaale ka dhigan equal to ayaan leenahay if hadduu kan intaas yahay aduu mid baad iska shaqaysanaysaa marka nidaamkii taxiga loo marayay baad maraysaa hadduu ka weyn yahay tirada salarigaas mishaarkaas hadduu ka weyn yahay 12,000 ba hadduu ka weyn yahay maxaa la kooma 35% iyaga dhig baan leenahay 35% iyaga dhig 35% iyaga dhig baan leenahay koomaan leenahay if baan leenahay mishaarkaas hadduu haddana ka weyn yahay 10 hadduu ka badan yahay 10 iyo wixii ka badan waxaad leedahay kooma double quotation kaad xidhaysaa 30% ka dhig baad leedahay percentigaad gelinaysaa 30% ka dhig aad leedahay kadib haddana koomaad leedahay if baad leedahay haddana iftaad ku wadaysaa ilaa ka ugu dambeeya ka gaadhaysa kaa ugu horeyna waa reference ahaan baad u isticmaalaysaa hadduu ka weyn yahay mishaarkaasi 9,000 hadduu ka weyn yahay ama ka badan yahay 25 iga dhig baan leenahay 25% ka dhig baan leenahay if baan haddana leenahay mishaarkaas hadduu ka weyn yahay baan leenahay 8,000 hadduu ka badan yahay kooma baan leenahay iga dhig baan leenahay 20% ka dhig baan leenahay if baan haddana leenahay koomahan raacina if baan leenahay mishaarkaas hadduu ka badan yahay 5,000 hadduu ka badan yahay badhe 5,000 hadduu ka badan yahay kooma 10% iga dhig baan leenahay 10% iga dhig baan leenahay hadduu mishaarkaasi if baan leenahay hadduu mishaarkaasi ka badan yahay 4,000 oo dollar hadduu ka badan yahay koomaan leenahay 5% keliya iga dhig baan leenahay 5% baa cashuuraha ugu yar sida caadiga markaas double quotation kan xidhaynaa imse jeer baan jiida qorray waan tirsanaynaa tusaale 1 2 3 4 5 6 markaa 6 jeer baan bracketkan xidhaynaa ama parentheska xidhaynaa inta ayaan leenahay okay halkaas koomahan ka tagnay ka dhigantay saas darteed yuu diiday waa inaan koomaha ku xidhnaa enter baan leenahay kadib wuxuu noo shaqeynaya mid walba cashuurtii ka go'aysa percentage ahaan inta ahayd yuu halkaas noogu soo qorayaa bay ka dhigantay markaas waxaan sameynaynaa halkan waxaan sameynaynaa yeelaynaa equal to baan leenahay mishaarka caadiga oo lagu dhiftay cashuurtii maxaa la yidhahdaa ama taxigii mishaarka enter yaad leedahay intii kaa go'aysay buu halkaa kugu soo qoraya lacagtaada inta caadiga mid walba intii ka go'ayso qof walba ayuu halkaa kusoo qoraya net salaryga sida aad u shaqaysatid haddaba waa kan
cashuurta intaan laga jirin kadib oo cashuurta laga jaray iyo net salary adiga kuwaaba ka dhigan equal to baad leedahay minshaarkii hore caadiga ahaa in cashuurta laga jarin oo laga jaray cashuurtii laga jaray net salarygaaga markaa minshaarka kusoo galayo kan weeyaan caadiga markaas marka cashuurta laga wada jaro net salaryga kusoo galayo kaas weeyaan ugu dambeeyo marka maxaa la dhahaa minshaarka caadiga ee maxaa la grosska intaas yahay cashuurtii lagaa jaray inta ay noqoto percent ahaan marka la eego inta ay noqoto per percentage kadib marka lagaa jaro deduction la sameeyo cashuurta intaas waxay u xoroonaysaa dowladda iyo xoroonaysaa ka dhiganta waa cashuurtii kugu waajibtay aad ka bixi lahayd maxaa la ka bixin lahayd minshaarkaaga tusaale 12,000 baa ugu badan halkan aana isaga ugu badnaanay 3,600 2,500 taasaa ku xigta 10,000 ka go'ay ka dhigan marka asxaabteeda qaaliga inaad fahamteen baan u malaynaya haddaad wax su-aal ka qabtaan waad soo weydiin kartaan aad iyo aad baad umahadsantihiin goor walba aad joogtaan khayr ayaan idin rajaynaya dhammaantiin asxaabteeda qaaliga